waxaana wanaagsan daawadayaal halkan waa janaalka Hubaal News qodobada wararka daawa doontaana waxaa kamid ah Xasan Sheikh oo ka hadlay isku day dil oo loo qorsheeyay xiisada magaalada Boosaaso oo ka dartay isimada beelaha dega magaalada oo si cad uga hor imaadeen Saciid Dani Ra'iisul Wasaare Xamse oo ilaamiyay dagaal iyo Ismaaciil Cumar Geelle oo cadeeyay waqtiga uu ka tagayo madaxtinimada dalka Djibouti qodobadaas waxay ahaayeen kuwii ugu waaweynaa warka janaalka Hubaal News fadlan daawade dadka cusubta janaalkan qayb ka noqo saaxiibada ka hela wararka joogtada aan halkan ku baahino aragtidiina qaybta hoose nagu la wadaaga muuqaalkana si share gareeya laagtiinana way noo dhiirigelin haatan ku soo dhawaada qodobadaad maqasheen oo faahfaahsan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ayaa sheegay in ugu yaraan 3 jeer uu ka badbaaday isku day dil oo ay al-shabaab u qorsheeyeen isagoo qormo ku saabsan dagaalka al-shabaab iyo taageerida Soomaaliya oo uga baahan tahay beesha caalamka ku qoray wargeysa waxaan dareemayaa inaan si gaar ah u leeyahay faham aan uga hadli karo argagixisnimada caalamiga sababtoo ah waxaan ka badbaaday ugu yaraan 3 jeer isku day dil oo la ii qorsheeyay ayuu qormadiisa wargeyska Economist ku bilaabay Xasan Sheikh Maxamuud isku daygii ugu horeeyay wuxuu ahaa maalintii ugu horeysay aan xafiiska qabto xilligii koowaad ee aan madaxweynaha noqday 2012 ilaa 2017 isku daygii labaad waxay ugu soo qaadeen xilli aan ku tukanayay masjidka madaxtooyada ku yaala iyo mid saddexaad oo ay ugu beegsadeen anigoo ku sii jeeda magaalada Marka oo aan markaasi ka saarnay al-shabaab oo xiriir la leh al-Qaacida ayuu yiri waxa uu sheegay in Soomaaliya ay dagaal kula jirtay argagixisada muddo ku dhow 20 sano xuladaasina ay galaafatay dad badan oo Soomaaliyeed waxaan goobjoog u ahaa sida argagixisadu u hor istaagto horumarka waxay meesha ka saaraysaa abuurista dhaqaale bixin kara fursado mustaqbalka fog oo macno leh waxa kale oo ay waxyeelo u geysatay dariskeena xukuumadda cusub waxaa ka go'an inay ku gaarsiiso xal nabadeed iyadoo la isku dhafay xeelado kala duwan oo dhanka ammaanka iyo wadaxaajood adag oo lala galo al-shabaab ayuu yiri wuxuu Xasan Sheikh qoraalkiisa ku cadeeyay in al-shabaab guula ka gaareen muddo xileedkiisii hore balse ay nasiib daro hoos u dhacday shaqadii xilligii madaxweynihii ka horeeyay ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu ku dooday in siyaasadaha caalamiga ahayd ee ka hortaga iyo hoos u dhiga al-shabaab iyo kooxaha kale ee argagixisada aysan xilligan ku filneen loona baahan yahay si dhammaan loo badbaado in argagixisadaas laga adkaado ciidan ahaan iyo fikir ahaanba dhinaca kalena Ra'iisul Wasaare Xamse ayaa ilaamiyay dagaal culus Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre ayaa ilaamiyay guluf weyn oo dowladda Soomaaliya ay ku qaadayso kooxda al-shabaab iyo daacishta dagaalka ay kula jiraan Xamse oo hadalkan ku dhawaaqay isagoo shir gudoominaya kulan ku saabsan iskaashiga Soomaaliya iyo Midowga Afrika oo la yeeshay xubno ka tirsan golaha nabadda iyo amniga ee Midowga Afrika ayaa sheegay in howlgallo ka dhan kooxahaasi uu noqon doono mid xoogan oo dhameystiran waxa uu sheegay in ujeedadoodu tahay in la xajisto guulihii la gaaray iyo in dib loo furo jiidadka ay marayso sahayda baabuurta ganacsiga iyo dadweynaha isku safraya Xamse ayaa sheegay inay ka go'an tahay inay ka hortagaan ururada argagixisada gaar ahaan al-shabaab iyo daacish oo sanadihii dambe falal argagixiso ka geysanayay dalka waxaa naga go'an inaan qaadno dagaal xoogan isla markaasna baasan oo aanu kaga hortagayno al-shabaab ISIS iyo ururada kale ee argagixisada anagoo adeegsanayna hab military iyo habab aan military ahayn ba ayuu yiri Xamse ayaana xusay in howlgallada wadajirka ee ka dhanka argagixisada ay horseed u noqonayaan in dib loo furo wadooyinka muhiimka ee xiran iyo isku socodka dadka iyo ganacsiga sidaas daraadeed waxaan jeclaan lahaa inaan hoosta ka xariiqo muhiimadda ay leedahay in la ilaaliyo guulaha la gaaray ilaa iyo hadda iyo in sidoo kalena la sii wado dardargelinta jirta iyadoo oo la xoojinayo howlgallada wadajirka ayuu yiri sidoo kale waxa uu sheegay Ra'iisul Wasaare Xamse in dib u habeen lagu sameyn doono maaliyadda dalka si looga hortago maalgelinta argagixisada ugu dambeyntiina waxa uu Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya uga mahadceliyay Midowga Afrika nafurnimada ay sameeyeen ciidamada nabad ilaalinta Midowga Afrika ee ku sugan gudaha Soomaaliya geesta kalena mid kamid ah beelaha dega magaalada Boosaaso ayaa waxay war ka soo saareen xaaladda magaaladaasi sidoo kalena waxa ay hogaanka beeshaasi ka eriyeen Beeldaaji Maxamed Ismaaciil
golaha isku taga isimada beelaha Cali Saleebaan ee Majeerteen oo maalmahan shir uga socday magaalada Boosaaso ayaa soo saareen bayaan ka kooban 6 qodob kaas oo ay uga hadleen xaaladda magaalada Boosaaso oo xiisad dhowr jeer gacan ka hadal sababtay ay ka taagan tahay. Golahan ayaana sidoo kale qoraalkan ku cadeeyeen in beeldaaje Maxamed Ismaaciil uusan fagaaro dambe ku matali doonin beelaha Cali Saleebaan iyagoona ilaamiyay shir weyne degdega oo ay isku imaanayaan waxgaradka beelaha Cali Saleebaan. Isimada ayaana bayaankooda ku bilaabeen tacsida dhibaatadii ka dhalatay magaalada Boosaaso waxayna soo saareen qodobada kala ah. Goluhu wuxuu cambaarayay dagaalada ku soo noqday magaalada Boosaaso wuxuuna ka digayaa baaliyiri dadka ku hoolan fidnadaasi waxaana mudan in la ixtiraamo wada noolaanshaha bulshada deegaanka. Goluhu wuxuu aad uga murugaysan yahay baaliyiri kana tacsiyeynaya geerida iyo dhaawaca naxdinta la ka dhashay qalalaasii ka dhacay Boosaaso 11 Julaay ee sanadkan waxaana inta dhimatay alla uga baryeena bay yiraahdeen naxariis iyo dambi dhaaf ehelkoodana samir iyo iimaan inta dhaawacana allaha siiyo caafimaad dhaqso leh. 3 goluhu wuxuu cadeynayaa golayaasha dowladda isimada dhaqanka waxgaradka iyo shacab weynaha in beeldaaje Maxamed Ismaaciil uu faraha kula jiro arrimo aanan beelweynta Cali Saleebaan raali ka ahayn una idman natiijadeeduna tahay barakicin burburin iyo kala dhantaalida shacabka Puntland iyo kuwa gobolka Bari. sidaas daraadeed markay arkeen baaliyir waqtina siiyeen wax isbedelna ka waayeen goluhu waxa ay isla garteen in Maxamed Ismaaciil aanu ku matali karin kagana qayb noqon karin shir dambe isaga oo wata magaca beelaha Cali Saleebaan. qodobka afraad ayay ku yiraahdeen goluhu waxa uu ku bogaadinayaa dadaalada ay dowladdu ku wajahayso xaaladda abaaraha wuxuuna ku baaqayaa in la iska kaashado shacab iyo dowladba. 5 goluhu wuxuu shacab weynaha gobolka Bari gaar ahaan reer Boosaaso ugu baaqayaa baaliyiri inay u midoobaan amniga horumarka nabadgelyada iyo sumcadda deegaanka. qodobkooda 6aad ee ugu dambeeyay ayay ku yiraahdeen goluhu wuxuu ilaamiyay shir weyne degdega oo ay iskugu imaanayaan waxgaradka beelaha Cali Saleebaan. isimada ku saxiixan qoraalkan oo 6 gaarayay ayaana waxay kala ahaayeen Boqor Cabdirashiid Boqor Ismaaciil 2 Suldaan Mursal Muuse Koonte 3 Suldaan Maxamuud Xasan Cumar 4 Suldaan Abdullahi Saalax Jeenicad 5 Suldaan Maxamuud Xaaji Abdullahi iyo 6 Suldaan Cumar Maxamed Jaamac. waa hagaagay daawadayaal iminkana waxaanu eegaynaa Ismaaciil Cumar Geelana waxa uu sheegay waqtiga uu xilka ka degayo. muddo 23 sano ayuu Ismaaciil Cumar Geele xukumayay dalka Jabuuti oo ay ku nool yihiin shacab tiradoodu dhan tahay 1 milyan oo ruux balse hadda waxa uu ku dhawaaqay waqtiga uu ka degayo xilka. wareysi gaara oo uu bixiyay ayuu uga hadlay arrimo ay ka mid yihiin qorshayaasha dowladiisa mucaaradka sicirka nolosha kobaca halista kooxaha jihadoonka xiriirka Soomaaliya iyo xasaradaha Itoobiya. Ismaaciil Cumar Geele wadankiisa waxa uu buundo uga dhigay ganacsiga ay dowladda Shiinaha la wadaagto qaaradda Afrika sidaasina waxa uu ku noqday marinkeeda cusub balse dadka ka soo horjeeda waxa ay maamulkiisa ku qeexeen mid shacab muquuninaya oo ka hor istaagaya waxyaabaha ay xor u yihiin. wareysigan uu bixiyay Ismaaciil Cumar Geele ayuu ku sheegay inuu xilka wareejin doono sanadka 2026 oo ku beegan markuu dhamaanayo muddo xileedkiisa hadduu socda. taas ayaana ka dhigan in Geele uusan mar kale isku soo taagi doonin tartanka doorashada madaxweynaha marka ee doorashada xigta dhaceyso. balse dhowr mar ayaa la sheegay in sidaas uu ka dhawaajiyay haddana markii la gaaray xilka madaxtinimada uu dib iskugu soo sharaxay isla markaasna sidaas uu ku noqday madaxweynaha dalka Jabuuti. guud ahaan daawadayaal wanaagta warki waad kala socoteen Ubal News fadlan daawade nagu soo biiro ka mid noqo saaxiibada halkan ka hela wararka xasaasiga alaabaan ku baahin aragtidiina qaybta hoose noogu reeba muuqaalkana u sii share gareeya asxaabtiina laagtiina waa inoo muhiim waana ku mahadsantiin daawashadii la socodka warka channelka Ubal News.